taasoo tusaysa runaantii kalgacaylka ama niyadda wanaagsan ee u hayno reer Ijaara reer Masalaani iyo ummadda Soomaaliyeedka in howlahooda markasta aan usoo guurno oo imaan hadda meesha taqriiban waxaa wada socdaa ilaa 20 qof oo taarikaysan howlahan oo istaageen ogaaskii reerkana la socdaa iyo dhammaan dadka kala far badan marka horta waxaan leenahay arooskaas meesha maanta aan shaahid ka soo noqonay Allah barakeeyo insha Allah taala kii lagu waara oo maartay isku waara oo umad wanaagsan Allah ka dhigo insha Allah taala intaas horta ugu weyn waxaa dantan u imaanay ducadaas oo muhiim ah in reerkaas cusub u marino marka khayr ma u rajayna inta hadan ka baxo ahaantii sida sanadka uu yiri maanta maalin siyaasad ma aha tan goob siyaasadeed ma aha siyaasad badan kama hadlayno siyaasadda insha Allah waa u soo noqon doona waqtigeeda leedahay Ijaara Masalaani huluqo saboodalka aniga aad isku naqana muddo dheer baan hadda soo waday ilaa taqriiban 10 sano waxaa wanaagsan oo dhaxyaala oo war fiican baa dhaxyaala waxa hadda aan ogsoon yahay aniga cadoo waxaan ku dhiilaa aan goosanna iyo aan aadno xeebta waxaas lagama yeelay shaqadaas jooji maneno yetu ya South Nasisi ko sawa dowlad fiican baa noo dhalatay 2013 2017 asaga uu ka warama hadda kidoo waa meesahow marka shaqo fiican waa la qabtay meeshan haddana haduu ilaahay dowladda noo soo celiyo shaqo fiican baa la qabanay dowladda inaan soo wada celino oo aan ka wada faa'iidayso saas kuma ogin inta ma talaba laakiin waan goosanaynaa iyo waxaan ku tirsamayna warkaas ma jiro marka insha Allah taala waxa weeyaan khayr badan baan rajaynayaa waa soo noqon doonaa aad baan ugu faraxsanahay in muqdaan odayaal fara badan oo muxtaram ah oo reerka kamid ah oo meeshan fadhiyaan mafruuha ku wana marka insha Allah taala wixii kala dib baan ka hadli doonaa kali maanta waxaan kale oo aan rabi lahaa markii halkan oo noo dhamaado munaasabada arooska waxaan meeshan ka waday tournament ama caruurta youthka ciyaaraan u waday oo muddo socdeen hadda maanta waa finalki weeyaan waa tii ugu dambeysay marka hadduu waqtiga noo saamaxo waxaan rabi lahaa inaan caruurtaasna maanta u samayno finalka oo aad la joogtiin oo ayagana aan ka farxino youthka laba tiim oo ugu dambeeyay baa ciyaarayaan maanta aan la joogno ayagana kubaddaas aan maanta aan la qayb qaadano intaas waa idin sheegay waa mahadsantihiin Ijaara Allah ina barakeeyo badan shukran waa mahadsantihiin